Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal. Ku soo dhowaada barnaamijka Masraxa Maanta oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee halkan kusoo gudbin doono. Barnaamijkan waxaan ku falanqayn doonaa siyaasadda caalamka iyo dhaqaalaha. Sidoo kale barnaamijkan waxaan ku falanqayn doonaa waxyaabaha ka dhacaya waddankeena gudihiisa. Barnaamijkan wuxuu noo ahaan doonaa barnaamij taxane ah oo si joogto ah inoogu socda. Haddii ay tahay markaad kugu horeysaad kanaalkayga soo booqato subscribe inoo saar. Haddii aad Facebook iga daawanayso page-ka soo forward garay inaad saaxiibadaada la sii wadaagto muuqaalkan aad inoo like garayso muhiim ayay noo tahay saaxiib. Waan kusoo dhaweyneynaa ka mid noqo saaxiibada kala duwan ee halkan macluumaadka ka hela. Barnaamijkan waxaan rabaa inaan ku falanqayno kulankii soo fashilmay ee ka dhacay magaalada Jiddah ee boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale kulanka aadka muhiimka u ah oo indhaha caalamku ay hayaan ee ka dhacaya magaalada Tehran ee waddanka Iiraan. Sida wada ogsoonahay adduunku waxa uu qaybsanaa laba qaybood oo ah hanti goosad iyo hanti wadaag. Hanti wadaag oo ah system iyo hanaan socialism ah oo uu horkacayay waddanka Ruushka oo muddo aad u badan dunida lagu hagayay. Sidoo kale waxaa jiray hanaan kale oo ah capitalism oo ah hanaan uu Mareykanku horkacayay oo hanti goosad ah. Haddaba weli waxaa sii soconaya dagaalada iyo iska hor imaadyada labada group ka dhexeeya. Sida wada ogsoonahay bilowgii isbuucan magaalada Jiddah ee Sacuudi Carabiya waxaa ku kulmay madaxda wadamada Carabta iyo madaxweynaha Joe Biden madaxweynaha Mareykanka. Laakiin kulankaasi wuxuu ahaa kulan aad iyo aad caalamku ay u wada sugayeen. Sidoo kale wuxuu ahaa kulan muhiim u ahaa wadamadaas xiriirkooda marka la yidhaahdo. Sidoo kale wadamada caalamka iyo bulshada caalamku waxay fiirinayeen waxyaabaha ka soo baxa kulankaas. Laakiin waxa uu noqday shir hal bacaad lagu lisay camal noqday. Waayo natiijooyin ka soo baxay iyo bilowgii horeba hanaanku shir ku bilaabanayay maahan mid laga sugayay wax wanaagsan. Joe Biden marka uu ku guda jiray doorashada madaxweynaha Mareykanka ololihiisa waxyaabihii uu ololaha ku jiray waxaa ka mid ahaa in haba yaraatee Maxamed bin Salmaan booqasho iska daayay xitaa salaan uusan ka qaadaynin. Sidoo kale waxa uu ololihiisa ka mid ahaa in dadkii dilay waryihii weynaa ee Kamaal Khashoggi ee ku dilay qunsuliyadda Istanbul ee waddanka Turkiga in lala xisaabtami doono. Joe Biden wuxuu markaa ka xaqiijiyay in haddii ay dhacdo in uu Sacuudiga booqanayo in uu salaan ahaan xitaa ugu tegayo boqor Salmaan laakiin Maxamed bin Salmaan uusan u tegaynin. Laakiin taasi waxay iska ahayd war iska ciyaal ah. Laakiin sidii waxaa dhacday in madaxweynaha Mareykanka uu u baahday waddanka Sacuudiga kadib markii ay dagaal uu ka qarxay waddanka Ukraine. taasina waxay keentay in madaxweynaha Joe Biden marka uu tegay Imaaraadka garoonka diyaaradaha uu ku soo dhaweeyay boqorka magaalada Makka. Sidoo kale meeshii laga filayay Maxamed bin Salmaan uu soo dhaweeyo waa meeshii ugu horeysay marka ay ka bilaabatay in madaxweynaha Joe Biden oo hadduu Sacuudiga tago uusan waxba kala soo kulmaynin. Arrintii labaadna waxay ahayd markii ay kulmeen madaxweyne Joe Biden iyo Maxamed bin Salmaan meeshii la rabay in la isgacan qaado caadi la isku salaamo waxay isku salaameen feer camal. taasoo keentay ayadana shaki kala dhalisa in kulanku uusan xiiso sii lahaanaynin. Kulankan waxyaabihii ugu waaweynaa ee loo kulmay waxa uu ahaa in isbahaysi laga sameeyo bariga dhexe. Sidoo kale kulankan waxyaabihii lagu qorsheynayay waxa uu ahaa in la sameeyo isbahaysi looga soo horjeedo Iiraan ee gobolka. Sidoo kale kulankan waxaa lagu qorsheynayay in laga soo horjeesto isballaarinta uu ku wado gobolka dhexe waddanka China. Laakiin waxaa dhacday in kulankaasi aysan waxba ka soo bixin. Haddaba taasi dhabarjab ma ku noqon kartaa Mareykanka? Dabcan sidaan wada ogsoonahay Sacuudiyaanka ama Carabtu markan waxay garowsadeen in Mareykanku uu dhabarka soo xijinayo. Waxay ogaadeen markan in haba yaraatee ay dantooda oo keliya inay Mareykanku ay wataan laakiin dan Carabeed aysan wadinin.
taasna waxay dhabarjab weyn ku noqon kartaa waddamada reer galbeedka oo runtii dagaal adag uu kala dhexeeyo waddanka Ruushka. Sidoo kale waddamada Carabtu waxyaabahay aadka u doonayaan waxay ahaayeen maadaama hadda shidaal ay ka soo iibsadaan waddanka Ruushka weliba qiimo jaban ayna kuna iibiyaan qiimo aad u sarreeya. Faa'iidada ugu weyn waxay ahayd meesha wax ka soo gala in Maraykanku uu halkaa ka joojiyo uuna marka ayna ziyaadiyaan waxyaabaha iyagu ay soo saarayaan, taasoo Maxamed bin Salmaan uu ku gacan sayray. Sidoo kale markaan fiirino kulanka ka dhacaya waddanka Tehran waddanka caasimadda Tehran ee waddanka Iiraan, waa kulan runtii indhaha caalamku ay wada hayaan aad iyo aad muhiimna u leh. Kulankaas waxaa su'aalaha la isweydiinaya waxa ugu muhiimsan miyuu noqon doonaa sida kulankii hore ee ka dhacay magaalada Jeddah ee waddanka Sacuudiga, mise wuxuu noqon doonaa kulan saameyn leh oo aad u guuleysta. Dabcan waxaynu wada ogsoonahay in Turkiga iyo Ruushka iyo China ay isku hayaan waddanka Syria. Turkiguna marka uu doonayo in halkaas uu weerar ku qaado maadaama ay joogaan dadka Kurdiyiinta oo waddanka Turkiga qalalaase badan argagixisana u arko. Sidoo kale waxyaabaha ay aad ugu muhiimsan yihiin waxaa ka mid ah in waddamada reer galbeedka laga soo horjeesto. Marka kulankaas isna wuxuu yahay kulan aad iyo muhiim u indhaha caalamkuna ay ku hayaan. Laakiin kulankaasi haddii ay isfahmaan waddamadaasi oo hal meel laga soo wada jeesto, runtii waxay ahaan doontaa saameyn weyn, dhabarjab weyn ayay ku noqon doontaa waddamada reer galbeedka. Waxayna noqon doontaa in adduunku uu hadda u jeesanayo waddo cusub. Haddii marka Iiraan nuclear-ka iyo hubka ay soo saarayso ay ku guuleysato oo arrintaa lagala shaqeeyo oo Turkiga iyo Ruushka iyo China ay arrintaa ku kaalmeeyaan, iyadana waxay noqon doontaa saameyn kale oo gobolka ah. Iiraan si waynu ogsoonahay waa meesha ugu waddanka ugu saameynta badan ugu mugga weyn bariga dhexe marka laga hadlayo. Sidoo kale waxyaabaha aadka wararka caalamka in badan la isku hadalhayo waxaa ka mid dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine. Sidaynu ogsoonahay muddo aad u badan ayuu Maraykanku dhabarjab ku hayay. Hadda markii Ruushku soo weeraray si Ruushka uusan ugu guuleysanin qorshihiisa ayuu Ukraine ula saftay. Laakiin sidaynu ogsoonahay in Ukraine uu ka biirto NATO waxaa ka hor istaagay waddanka Maraykanka. Haddii hadda inta badan magaalooyinka inta bariga marka la fiiriyo Ukraine inta badan Ruushka ayaa gacanta ku dhigay, taasina sidoo kale waxay dhabarjab weyn ku noqon doontaa reer galbeedka. Adduunku wuxuu u jeesan doonaa weji cusub. Waxaan sugnaaba hadda waa kulankan ka dhacaya waddanka Tehran iyo Iiraan ay ku kulmayaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, kan China iyo Turkiga Erdogan, sidoo kale iyo Ibrahim Raisi kan Iiraan. Kulankaasi runtii natiijada uu ka soo baxda laba mid bay noqon doontaa: in adduunku uu u jihaysanayo waddo cusub oo reer galbeedka iyo federalismkan liberalismkan muddada dheer reer galbeedku adduunku soo dhaqayeen in laga gudbi doono. Sidoo kale wuxuu noqon doonaa kulankani kulan waddamada caalamku ay ogaan doonaan reer galbeedka dhibaatadooda. Waa haddii kulankani natiijo qurux badan iyo midnimo ay ka soo baxdo. Xitaa kulankani wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa waddamadan Carabta, oo haddii Ruushka iyo Maraykanka iyo Iiraan ay si fiican iyo China si fiican u heshiiyaan oo isla meel dhigo, reer galbeedkana meel la saaro, dabcan waxaa meeshaas ka caddaanaysa iyadana waddamadan Carabtu inaysan dhabarka u jeedin doonaan waddamada reer galbeedka. Taasina waxay noqon doontaa nidaam cusub oo adduunku markaa meel u jihaysanayo, reer galbeedkana markaa dhabarjab iyo burbur uu markaa halkaa uga bilaabanayo. qaybtan intaasaan kusoo gabagabeynayaa war badan ma sii doonayo. insha Allah kulankan markuu dhaco waddankan Iiraan Tehran ka dhacayaan si fiican usoo falanqeyn doonaa haddii la yiraahdo. haddii ay tahay markaa ku horeysay nagu soo biir kanaalka subscribe noo saarta muhiim ay noqotaa saaxiibada adigoo kale inaan yeelano aad iyo aad muhiim u tahay. barnaamijkan wuxuu inoo noqon doonaa barnaamij muhiim u iminku noo bilowday. insha Allah waxaan rajeynayaa inuu wax badan iyo xog badan inaan meeshaas isku dhaafsan doono. waxaan idinku sii salaamayaa sidaa iyo nabadgelyo tan iyo kulankeena xiga.
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.